shirkii koowaad ee guurtida beelweynta dir ayaa ka qabsoomay aqalka hidiya dhaqanka ee Oromiya ee ku yaala caasimadda dalka ee Finfinne. waraamuurtaasi ku saabsan waxa inoo hayay waryaheena OBN Muuse Xaaji. shirkii golaha guurtida beelweynta dir ee ugu horeeyay ayaa lagu qabtay xarunta dhexe hidaha iyo dhaqanka Oromiya ee magaalada Finfinne. furitaanka shirkaas waxaa lagu bilaabay aayadaha Qur'aanka Kariimka sida ay ahayd dhaqanka Islaamka. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. sidoo kale furitaanka shirkaas waxaa ka soo qayb galay abaagadayaasha Oromada oo horkacayo abaagadaha guud ee Oromada mudane Goobana Hoola oo ducada ku fureen shirkaas. sidoo kale waxaa isna ka soo qayb galay furitaanka shirkaas mudane Guyoodoyo oo ka socdo xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Oromiya. kadibna waxaa kelmad furitaan ah ayaa ka soo jeediyay shirkaas doomiyaha golaha guurtida beelweynta dir ee Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawil. bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. ilaahay baa mahadla marka hore madashan isku keenay. marka labaad anigoo ku hadlaya codka ummadda direed waxaan halkan mahadnaq iyo bogaadin uga soo jeedinayaa walaaladeen Oromiya. xubnaha golaha guurtida beelweynta dir waxay sheegeen in ay taageersan yihiin isbeddelka ka jiro waddanka Itoobiya iyo in ay garab istaagi doonaan xisbiga barwaaqada ee BB isbeddelkan hogaaminaya oo horkacayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. xisbigan waxa weeyaan barta laga go'aaminayo go'aanka dalkan iyo istaraatiijiyada dalkan lagu hogaaminayo ta dhaqaale ta siyaasadeed meesha lagu go'aaminayo ma fadhinaa. dowladan la baxday xisbiga barwaaqo sooranka EPP waa barwaaqo sooran waa hodannimo markaas xisbigaasi ninka talada u hayay fikradda uu soo rogay waxa sidoo kale golahaas wax ay sheegeen ururkan in uusan shuqul ku lahayn siyaasadda balse uu yahay urur bulshadeed oo ka shaqeynaya midnimada iyo ka warhaynta beelaha dir. isku warqabka beelaha dirna wax dhibaato ah kuma noqon karo bulshada kale ee walaalaheena nala nool ayay yiraahdeen golaha guurtida beelweynta dir. maalinta furitaanka ay ahayd sabtida la soo dhaafay taariikhdu ay ahayd 7 bisha saddexaad ee 2020 goluhu wax ay ka warbixiyeen xogta ay ka hayeen meelaha kala duwan ee ka kala yimaadeen. shirkii maanta saddexaad oo maanta gabagabada ah oo lagu furay aayadaha Qur'aanka Kariimka kadibna waxaa la bilaabay ra'yi aruurinta iyo doorashada guddiga howshan sii wadaya iyo meesha lagu kulmi doono sanadka dambe haddii eebba idmo. doorashada guddoomiyenimada waxaa mar labaad cod aglabiyada ah ayaa lagu doortay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawil. ku-xigeenkiisana waxaa loo doortay Cabdiraxmaan Awgood. hogayaha golaha guurtida waxaa loo doortay mudane Daahir Cilmi Ducaaley. qasnajiga golaha guurtida waxaa loo doortay Sheekh Cabdiraxmaan Siciid. waxaa sidoo kale abaagadaha Khadiir loo doortay isku xidhaha beelweynta dir iyo sagaalka deegaanka Itoobiya oo dhan. bayaanka ugu dambeeye ee goluhu soo saareen waxaa lagu dhigay 3 luqadood oo kala ah af Soomaali, af Oromo iyo af Ingiriiska. bayaanka af Soomaaliga waxaa soo jeediyay Professor Abdusalaam Yaasiin. bayaanka af Oromadana waxaa soo jeediyay mudane Daahir Cilmi Ducaaley. midka af Ingiriiskana waxaa soo jeediyay Xildhibaan Aadan. ugu dambeyntii waxaa kelimad mahadnaq ah ayaa ka soo jeediyay shirkaas doomiyaha guurtida Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawil oo ugu mahadnaqay dowladda federaalka Itoobiya oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ugu mahadnaqay xorriyadii ay ballaariyeen isagoo muujinaya farxadda ka qaba Nobel Peace Prize oo ku guuleystay Dr. Abiy Ahmed 2019. sidoo kale wuxuu u mahadnaqay dowlad deegaanka Oromiya oo u ogolaatay xarunta hidaha iyo dhaqanka Oromiya oo shirka lagu qabtay.